حاجز كنولي هذا عقوبة حديقة جيسك هذا كبير ما وحدقة حدق ما قرنا حديقة ما قرنا حدقة كوا عير كوا قرنا كوا محايا كوا حدقة بلوك يا لا جرنا waxaan leeyahay culimada marar badan oo hore ungafnana way jirtaa oo aan dhaanay culimadu way ka gaabiyeen booska loogu talagalo oo booska ambiyadiina ku jira way ka gaabiyeen horta marar badan oo dhaanay waxaan leeyahay ka raali noqdo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waa muuqaal kale fanaankii BK ahaa fanka ku soo laabtay oo mar kale calankii tawxiidku uu ku qornaa ka dulboodaya bal ila arag la ilaha illa allah la ilaha كلمة لا إله إلا الله كل سهلنا ninkaasi ilaahay iyo ummadaba been buu sheegay uma hanqal taagayo hankaygana kuma jiro waayo mustaqbal bamba leh fanaan walba noloshiisa waxay ku dhamaatay meel adag iyo isagoo loo baahanayo su'aashiisa kale waxay qof go'aan ku qaatay xumaanta inuu iska daayo ku noqday xal la gudban arrintii maxamed BK way si adkaanaysaa mar waa asagoo tawxiidka ka talaabsanaya mar waa asagoo tawxiidka ku istaagaya arrinta before iyo afterka sidoo kale way dhamaan laadahay nimaan yaabin baa dhaho waan yaabay bitirada Soomaalidu hadaba aniga hadda aan kula hadlaayo waan yaabanahay bartii aan yaaban fadhiya ninkii macnaha BK ahaa xidigaha geeska soo dhaweeyay kule sheedaankan BK hayo xil nuuc u qalma sheedaanka BK hayo horta salaan sar u qalma kudi waxa weeye fanki inta ka saariyay hadana dib ugu soo celiyay sidoo laga sameeyo caadi loo maamulaya wadadan aad qaadaynaysa wada sax ahayn adiguna waa ogtahay ilaahayna waa ognahay ummadda Soomaaliyeedna way ogtahay marka waxaan kaaga nasteexaynayaa aniga iyo walaalaha kale ee Soomaaliya qeyrka kula jecel waxay kaaga nasteexaynayaan wadadan wada fiican ma ka soo noqo wala kaligaana ma ahane fanaaniinta dhan ee Soomaaliyeed iyo intayna fahmayso oo dhan waxaan leenahay ka soo noqda waxaana wax wanaagsan ma ahane iska dhaaf bulshadana hadday isnacdo colowdo waxa way diintoodii adduunyadooduba waa fasaadaysaa oo ummaddu inay casku cadhooto isnacdaa iska daa adduunyadooda diintooda baabiisaa halka marka ay marayso walaalkeen waa u nasteexeeyay aniga iyo bulsho kale oo Soomaaliyeed oo khayrka la jecel ayaa u nasteexayno waxaan niri wadada aad ku socotahay ma ahan wada saxan meel xun ayayna ku geyn kartaa ilaahay khaatumada dhamaanteen ugu duway ilaahay subxaanahu wa ta'ala u toobadkeeno rabbiga u noqo albaabka toobaduna waa furan yahay basharkuna dambiga waxa weeye dabcigu uu ka mid yahay oo habeenay maalin weyn dambaabaynaa laakiin waxay noo furan albaabka toobada qadiyada islaamnimada iyo midda qabiilku marka isku meel ummadan Soomaaliyeed ka soo dhex galaan ilaahay wuxuu ku salladayba in ay midda qabiilka ixtiraamaan war sidaasi ma aha marka heesuhu waxa weeye dadka ilaahay bay ka jeediyaan oo waxa weeye rabbi ka jeediyaan subxaanahu wa ta'ala xuskiisa iyo dhikrigiisa isaga taasaan leeyahay waxaan leeyahay waxba ku adkaysanin waxaan adduun iyo aakhira waxba ku taraynin ana calanku u doodi ma laakiin magaca ku qorana u doodaya la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah agteena qiime ku leedahay in maha magacaas halkaas ku qoran maanta dartiisa oo ilaahay nooga caroodo wax lagu sameeyo calanka macnaha xitaa magaca ka diran laakiin calan hay'adi ahaado midaas aroon ani kulay walaaleyga reer Soomaaliland wax wadadan u qabo ma lahan waxaan ka hadlayno waxa weeye wixii jiro in ilaahay uu noo caroodo waxa weeye laga fiican yahay in wax ilaahay uu noo caroodo wax anaga aan u jeedno gacanteena ku keensanay maanta macnaha in BK oo calankii ka dul tilaabsado ku dul istaago xitaa BK kaliya ma aha dadyo far badan naag waxa arkay ku dul kaadinayso oo heesaha uu ku noqday waxa dheer imiga waqtigan la joogo inuu falcelin sameeyay markuu arkay iyadoo la hadalayo social media lagu hadalayo in falcelin sameeyay falcelintaasina waxa uu ku dhacay yani waa khalad weeyi oo ah culimada inuu marka aflagaadeeyo oo uu yiraahdo yani waxay ribay cunaan way xan badan yihiin waxbay bixin waayeen waxaan leeyahay taasina waa dambi kabiir ah in dadka xamalatu shariica dadka diinta xambaarsan in sida loo eedayo ma banaana wadaadaduna way iska amaan galiyaan way u soo ducaynayaan dukaamadu way iscamiraano qori keligii ma berbereen markay
igaaga ciyaarayaan heestaa bay deeqaysaa saaxiibadii xidigaha geeska waan ku faraxsanahay hortooda inaan taaganahay iyaguna ay taagan yihiin kooxdaydiina aan ku soo biiray horta waa mahadsantiina fadhiista mar labaadka waxaan u hambaliyeynayaa kooxdan oo in badan jirtay oo dee maanta way igala duldhaceene iyaga mas-uuliyadda weyn iyo xooggaba geliyey ugu horreyn waxaan u mahadnaqayaa horta xaaji aad baad u mahadsan tahay mar labaadka macalinka weyn iyo guddoomiyaha xidigaha geeska axmed weli ibraahim furle oo sidan isugu soo dubariday hadduu farihii dahabka ahaa maamul fiican ku darsaday waxaan leeyahay saaxiib aad baad mahadsan tahay waxaan ku faraxsanahay qamar suudaani oo soomaali oo dhan taqaano cabdikariin cali sheekh michael amiin dee gabdhaha aan meel ka soo wada muuqanno oo ka wada jaasno anigu aad bay ii farxad gelinaysaa maanta horta waa loo baahan yahay dad maanta duulkan waxaa weeye wada dudsan wada yani waxaa weeye wada qiiraysan duulkan yani waxaa weeye aakhari adduun meelay jiraan aan la aqoonin ciddu intay hor istaagto oo tidhaahdo war waddadanaa saxane soo raaca ihdina siraada almustaqiim ku dul akriso horta waa loo baahan yahay waa loo baahan yahay sababtoo ah maanta dad baa waxay lacago ku fangareeyaan sida islaamka loo baadiyayo sida ummadda loo dulliyeeyo dad baa lacago ku bixiyo maanta dad baa lacago ku bixiyo culammadan horta waxaan leeyahay khayr allah idin siiyo haddee warkaa run tahay oo warkaa war saxan u yahay in maxamed bike iyo fanaaniin badan iyo kuwa hore yani aad oga bixiseen adigoo ducaa iyo iskugu daray jaabkooda inaad u buuxisaan horta haddeeba run tahay waxaan leeyahay culummada marar badanoo horaa un gaflana way jirtaa oo aan dhahnay culummadu way ka gaabiyeen booska loogu talagalo oo booska ambiyadiina ku jira way ka gaabiyeen horta marar badanoo dhahnay waxaan leeyahay ka raali noqdo culummadan waxaan leeyahay ducada waxaa weeye inaad ku dadaashaan anigana waa idinka codsan laha oo weli annaga xitaa aniga laftirkii anta idahada aarka inaad ii duceysaan idinka codsan laha muuqaalka intan aan kusoo ameeraya waxaan leeyahay ilaahay horta hana hadiyeeyo ilaahay hanu waxaa weeye hana sharfo ilaahay hanoo dembi dhaafo waxaan nahay dad qaldamo dembiyo ku dhaco laakiin ilaahay mar walba inaan weydiisano waxa weeye aan dhahno allaahumma adigaan ku weydiisanaynaa mar walbaba yani waxaa weeye meesha hidaayada iyo waxaa weeye hanuunka uu naga jiro muuqaalka intan aan kusoo ameeraya intaan muuqaalka xiga aan kulmi doon waxaan leenahay muuqaalka meel dheer noo gaarsiiya saaxiib mar labaad iyo mar saddexaadba waa aad ba u mahadsantihiin maxamed axmed bakaal cabdiraxmaan cabdiyare aarshe khatra cabdisinmo halkaa iga muuqata asmaloofo halkaa iga muuqato waanu in badan dee gurigeeda howl badan ku wadnay aad rooda kayf nimca degan oo hadal qiimo leh oo sharaf badan leh caawo ka jeedisay halkan war saaxiib waa idinku faraxsanahay waxaan ballan qaadayaa laxamaan darka ka darno wada shaqayn fiican dhiig cusub waana ku faraxsanoo dukaamadu way iscamiraano dee qori keligii ma berbere markay igaaga ciyaarayaan dee heestaa bay deeqaysaa waad mahadsantihiin dembiga aad ku haysataan walaalkiin oo ah inuu heesii ku noqday dembiga aad ku sugan tihiin baa ka weyn oo wiirsiya oo aad ku wiirsanaysaan waxaan arkayay qaar badan oo soo dhegayey fiidiyooyadii waktigii markaa uu ka soo baxay yani waxa weeye heesaha ka soo noqday markaa fanaaniinta kasoo dhex baxay fiidiyooyadii laga duubay waxaan arkayay qaar iyagoo ku xumaynaya soo dhegayey waxaan leeyahay ilahi ka cabsada subxaana wa tacaala rabbi ka cabsada jala wacala maaha dariiqadaasi dariiqa naseexo maaha waa dariiqo markaasi sharciga iyo caqligaba khilaafsan weeye arrintii maxamed bike way sii adkaanaysaa mar waa isagoo tawxiidka ka tallaabsanaya mar waa isagoo tawxiidka ku istaagaya arrinta before iyo afterka sidoo kale way dhammaan laadahay heesaa ahaa inuu heesii ka baxay culimada ay ku farxeen biko mu ahaa magaciisa bk maxaa bk oo Soomaaliland Soomaa Soomaaliland hargeysa jooga xageesu ku nool yahay hadda wuxuu ku biiray xidigaha geeska hadda ku biirma wax xidig ma garanayo xidigaha kuwa cirku aan garanayo kuwa maxay koos xidiga dhulka yaala jirnaa almuhim waxaan maqlay marka waa match waxa iga soo baxay ninkaas oo waxaan maqlay inuu hees ka baxay aan ku faraxnay tababarka isoo gaaray hadana waxaan maqlay inuu ku noqday markuu ku noqdaa waxaa la yidhi marka wareysi uu bixiyey wareysigaan dhegaystay marka wax weyn iga soo baxay horta kuma faraxsanin inuu heestii ka soo baxay oo ilaahay dartii uga baxay
إنه دب يقول نقطة هرتكم فرحسن شخصيا هذا أبو حمد الله تبارك وتعالى هذه لكن وحقيقة صباح وحويري هذا الكيس ما كان دقيستي وحويري waxaan isu maleynayay dadka ugu dambiga badan inaan ahay markaan heesaha ku jiray markaan ka soo baxay waxaan ogaaday inaan dadka ugu dambiyar aan ahay arinkaasi waa runtii waa arin in lagu fikiro u baahan aniga cilmu inda Allah dad iga darana arkay u dhahay oo iga dambi badan aniga markaan arkay dad iga dambi badan inay joogaan heesaha iskaga noqdo dhaw aniga hoostiisa iska wata marka waxyaabo uu miisaal uu bixiyay laba mid ka dhageystaan wuxuu yiri dadka kaadimi badan waa kuwa lagu yiri wuxuu yiri dadka ribada cuno wuxuu yiri dadka xanta nin dhalinyaro Soomaaliyeed meel ka karaysan madow oo iskhilaafeen dhalinyaro dad wadaadii ahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed meel ka karaysan waa iskhilaafeen adi waa la xumeeyay wuxuu yiri wax qamiis qabo ayaa ugu necbahay aragooda xataa subhanallah awal waxaan ka aaminsan qamiiska inuu wax kale yahay marka ninkan يا سوداد أو دهيسا إسكاجا دحجري علماء صار دحجلي طبعا الله أعلم لكن وحأم لي إن علماء أو إن كلا ولكن علماء وحكي شيء جاي إنه أركيه ير دب أبودي عن لي والعلم عند الله وايو دت قف عادي سعينا داربته شيء بسيط لكن دت علماء لكن إلا قطة إذا قدوها يعني ورثة الأنبياء ها إن دت سبقوا نقضان أنا دينتي يو محبتي إسلام مدي التزامك دب يقول نقضان وحيابها كينا يا الله أعلم لأن هذا كور علماء رسل الشيء يجريه بدوش أوكادي محل محد شو أوكادي نصور علماء نور السوداء مالا أدنى أنت أوكادي صدقت مركب والعلم عند الله لكن دتك علماء ذا لقوا صهيرنا يرنتي ولو دتك أي سوق قصدايان وكان حيسا مركز أركتو حسن ملك حتى هذه وأركي علماء سياسة أم علماء وحمانا يسا أم علماء يعني دد علماء ما أنت وكل علماء الله ما ذكر دتك وحمانا وكلام مسكين ما يعيش كحن بارسين إنه النقطة ما هي نورت أصلا ويا واحد كتجتانك وكتج لأجل الله وها إلهي اسمه بدلاي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه من وربه سدوا أهاي وأهانا أو كلام وناقيس سدوا سوهانا إذن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إلهي إن دد ما قدر درسته دد ما قدر درسته دد ما بدل إلا إني بدلان مويا مركب بيك ما إنه صار نقطة كسر نقطة أو جد كي ونكسنا ما أهين وحنا أويرا إن شاء الله تاكل كي إنه ما إنه دقي سنة رجينا إنه دب صار نقطة حيقول كلفي وحلاقي مشكلة معها وحداد السجيني معها فاملي ووحدة الله aan goostay inaan iska daayo oo ku farxsan oo maadaama ilaahay dartii uu yiri dad badan oo ku dayan lahaa oo ilaahay dartii dhihi lahaa oo ama go'aan gaari lahaa inay hadana arkaan ninkii oo saaxiibkooda ahaa soo noqday inay ku sii adkaystaan booskoodii san u dhicin marka noqosho ma jirto shayga ilaahay dartiisa looga tago in laga baxo in ilaahay u imaatay ilaahay wax ka fiican loo noqonayo ma laha marka taas waxaan nabiga wuxuu yiri alayhi salaatu wasalaam man taraka shay'an lillah awadahu Allah khayran min إلهي دتك وحنا وقتك إلهي بكون بدلاي مرك إلهي هو وين كوس ووضع إن تكتكتو أنا كحماي مناسب معهن لكن لقن حمداسي أو لقيا إن ونكاس لكل ما يسدب سبب ونقطينا دتك دين تشجعنا أيو أنت شيخ عدا يحيى أنت دان كوش شيخو دلني رأس كلا باشا الله واسكلا في الاستام مرة الله الله مركزي واحد اسكو اتفاقين بنيو نين ودادو وحدنا كفتماyo ma aragna banak wadaad hadan aragna buu isxirxiran yahay asaga dhanba waa nooc kale oo deew waxa weeyaan asaga kaligiisa salaam alaykum salaantaas wax ka badan hatta marka salaanto wuxuu ku leeyahay war waa suuqa in salaama muxuu intaas ku isku naqaana maxaba lahu furfurado ma ka garin li ajli hada nabiyina sallallahu alayhi wasallam oo daacigi weyna aha qudwoonoya waxaa dhici jirta nabiga in nin uu hortiisa soo istaago dhalinyaro uu yiraahdo yaa rasuul allah zinada iyo fasax intaas kuma imaanin ilaa allah i xalaalay i banay raxmadiisii ayuu ka dhaxday mooyaan ma dhihileen haduu ahaan lahaa qadan gariid qalb haduu ahaan lahaa waxaas kama suurtooban marka nabiga qudwoono yahay qudayshoono yahay marka in dhalinyaro la baashaaro dhalinyaro la fadhiisto foodaasan la arkin qalbigooda la fiiriyo in allah la yandur ila suwarikum lawaani wax loo sheego la soo jiido salaad lagu hanuuniyo هذا مثلا halkasan ku soo khatima dadka quraanka saaro wadanka ma sheegayne si aan lacala wacasa wadanka sheekh wadanka boqol Soomaaliya ku nool المهمسان وأسطورنا والله أي مات صدق أنت دبجنا احترق قرآن صار ربا تتكحنوا سنتا ورا صناعي دبنا إيش شغلت استعراض الله وحلين واي وحنقول ما تكتا هذه والله الشيخ صلاة وقلب
طيب iska dhaafa salaadaha kale maanta subaxdan fajr ma tukatay maya duhur ma tukatay maya subhanallah casrna uma jeedo inay tukato waxaan ku yiri madasaan hadaan ku socoto soo ilaahay kuma caroonayo ugu dambeyn waxaan ku yiri adoon tukanin quraanku ma saarayo orod soo isqaado fajrkiina tuko duhurkiina tuko ilaahayna u toobadkeen iisoona markaasaan quraanku saara way faraxday oo soo tukatay wallahi daa yaxya wajigii igu qaabishay madooba markay toobad keentay wajigeedu wuu ifay iyadoo bedelan bay imaatay فرحسن ما أنت لبعض يسون نقطي دتي أهل كذا على السعودية وإيش شيء صلاة ويبلو الحمد لله وفعناتي والله خير الله كسي أنا كنا ودري من النور كسوجي كبح حيو وهكذا إذا هذا مركب بناك ما تكتي ما تكن إجتك هذا عن لتقول تارك صلاة تهاي لو صلاة كتي قالها تهاي دين تنكم مجرتد وكاس عداوة وقاضي دعوة أسلوبه ربنا وهذا يعني ادعو إلى سبيل ربك وموعظة الحسنة markii ilaahay tawfiiqana waafajiyo ya rab badana waxay u cararaan diin la amahan diintu way jecel yihiin waxay u cararaan tacaamulka xun lagula tacaamul diintii loo adkaynayo wax kale looga dhigo ilaahay tawfiiqana waafajiyo insha Allah jazakallahu khairan jazaa aad buu ma soo xasan alwaajid fariinta ayada ah dhamaan bulshada inay gaartaan rajeynaya kii adkay waa lagu adkaynaya marka nabiga wuxuu dhigi jiray yasiru wala tu'asiru bashiru wala tunfiru dadka u bishaareeya aysan kaga cararin haloo fuuday yaa lagu cuslayn buu dhigi jiray xasan rabbi sallallahu alayhi marka insha Allah dacwada khayrka in la qaataan rajeynaya jazakumullahu khairan assalamu alaykum